Munaasabadan ayaa lagu xusayay 30 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay cisbitaalka Kaysanay oo ka mid ah cisbitaalada danta guud ee u adeega shacbiga. Maamulka sare ee cisbitaalka, agaasimayaasha qaar ka mid ah cisbitaalada danta guud, dhaqaatiir, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xuskan oo lagu qabtay cisbitaalka Kaysanay. Agaasimayaasha cisbitaalada Madiina, Banaadir iyo kusimaha agaasimaha cisbitaalka SOS ayaa maamulka iyo shaqaalaha cisbitaalka Kaysanay ku bogaadiyay sida ay ugu adeegayaan shacbiga. aniga horta meeshan waxa liigu casuumay marti ahaan laakiin aan isku ma arko marti sababtan waxaan kamid ahay mirihii iyo ma aragtay dheemankii isbitaalkan ka soo baxay dhammaan shaqaalahan caafimaadka u jeedaan waxa ahaa dadka ay soo saareen 30 sano meesha ku xusan 15 sano kamid dadka lagu galiyay anaan kamid ahay waxaan u hambaleynaa agaasimaha guud iyo bahdiisa oo aan dareemi karo isku duubnidooda iyo sida ay ugu soo dul qaateen xiliyadii adkaa 30 sano in adeeg bulsho la sameeyo oo la sii joogteeyo ma sahlana hambali ayaan idin leeyahay Kaysanay runtii waxaan u maleynayaa markii toddobaad oo idinka soo qayb galay xafladan waa idinka madcelinaa relationka iyo xiriirka dheer naga dhaxeeya anaga iyo idinka runtii xiriirkiina wuxuu soo bilaabday 2002 gudoomiyaha midowga jaamacadaha dalka ahna rektorka jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa sheegay in cisbitaalku uu xiliyo adag u soo shaqeeyay dalka iyo dadka runtii waxa weeye waqti aad u ciriiri oo kulul waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo maamulka mas'uuliyiinta isbitaalka Kaysanay oo runtii aan ka warqabo xilligii la soo bilaabay ilaa hadda xiriir gaar aan lahayn ee kana baxeen dhaqaatiir fara badan ee ka soo baxay jaamacadda Banaadir ee ka shaqeeya waxna ku barteen ahna jaamacaddii ugu horeysay xiriir la sameysata isbitaalka Kaysanay runtii isbitaalka Kaysanay wuxuu ka mid yahay isbitaalka tacliimiga ah oo aad u shaqeynayo Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Caafi agaasimaha horumarinta iyo warfaafinta ururka Bishacas oo taageera cisbitaalka ayaa ugu baaqay shacbiga inay garab istaagaan cisbitaalka maadaama 30 sano ay hay'adu garab istaagneed cisbitaalka loo baahan yahay cisbitaalkii 30 sano Bishacas way soo waday meeshaan aan soo gaarsiisan hadda waxaan u baahannahay marka kaalmadii bulshada waxaan u baahannahay cisbitaalkan in gacan la siiyo hadii aan rabno inuu sii socdo waxa yaraatay adduunka waxa yaraaday kaalmadii la siin jiray qof walba tiisa haysato agaasimaha cisbitaalka Kaysanay Dr. Axmed Maxamed Axmed Taajir ayaa ka warbixiyay howlihii u qabsoomay cisbitaalka 30 sano ee uu shaqeynayay isbitaalka Kaysanay statistically markaan dhahno inta uu daweeyay ama qalay waxa lagu qiyaasay laga bilaabay 92 103,045 bukaan waa inta la qalay oo la jiifiyay inta la qalin oo la daweeyay laakiin OPD la outpatient oo hore laga celiyayna waxay gaarayaan 253,667 xilli xaalado adag uu dalku ku jiray isla markaana dagaalo sokeey ay socdeen ayuu cisbitaalku bilaabay howshiisa iyadoo oo uu dabibaya dhaawacyada ku soo waxyeelooba dagaaladii ka socday magaalada Muqdisho 1992 waxa xusid mudan 30 sano cisbitaalku jiray in uu daweeyay dad badan oo dhaawacyo qaba kuwa kalena ay ka aflixeen marka laga hadlayo dhinaca tacliinta caafimaadka 30 sano ayaa ka soo wareegatay cisbitaalka markii dib loo howlgeliyay taas oo ka dhigay in howlo muhiim ah uu hayo shacbiga Soomaaliyeed. أيوب عبد الرحيم والباهين تقرنك مقدشو.